miyaa su'aali ka taagan tahay min laas qoray ilaa iyo buuhoodle in ay Soomaaliland ka mid yihiin jawaabtu maya kaas oo isu jira masaafo dhan 840 kiiloomitir labada degmo waa laba degmo 840 kiiloomitir oo dhul Soomaaliland ay leedahay ku yaala horta waa inaad fahamto inay yihiin muwaadiniintii dalkan 40% wax ku dhow iyo dalkiiba marka horta question mark ama calaamad su'aal ma saarna wadaninimada iyo dalkan in dadkan leeyihiin waxa kale oo dhanka kale Puntland su'aashaad iga weydiisay waxa dhacday khilaaf siyaasadeed oo dhacay baa waxa keentay in dadkani ay u dilaamaan Puntland xilliga laakiin wax kastaba Soomaalidu waxay tiraahdaan ma Ingiriiska waxay tiraahdaan history repeats itself wax walba iyada taariikhdu dib u qorta maanta mar labaad ayay dadka u dhashay goboladaas iyaga oo reer Soomaaliland ay doonayaan si dhameystiran in ay uga qayb galaan platformka siyaasadeed dalkan si dawladnimada dalkan ay u dhameystiranto waana taata keentay in dhammaan deegaamada aan sheegay ururka markaan ku dhawaaqnay ilaa iyo badan ilaa laas qoray ilaa ceergaabo ilaa dhahar ilaa iyo lascaanood ilaa meel walba si lamida goboladii kale ay xafladaha ka dhacayeen burco iyo togdheer iyo saaxil iyo awdal iyo maroodi jeex iyo sanaagba ay ugu soo dhaweeyeen xaflado loogu qabtay taa macnaheedu waxa weeyaan sidoo kale inay halkan yimaadeen Hargeysa dhammaan cuqaasha ama chief aqliska inta ugu badan ee ka soo jeedma deegaamada oo ay fariin publicana u direen mujtamaca reer Soomaaliland taas oo ay ku taakiidinayaan inay doonayaan inay ka qayb galaan mabda'an siyaasiga ee furista xisbiyada qaranka ee maanta la doonayay lagu tartamo taas oo aan u maleynayay in dhammaan mujtamaca Soomaaliland uu dhageystay maxaa la yiraahdaa hadaladoodii taas aanu markaa annagu wakiil kaga nahay mujtamaca iyaga iyo mujtamaca reer Soomaaliland